laga hadlaa arrintan waayahan cod aan maqlaynaa Muqdisho gabdho badan oo halkan siyaasiyiin oo meeshan jooga oo aan jeclahay bal marka hore inaan sheegay gabdhaha caawa meesha maanta isugu yimid waxa weeye waa labeenta gabdhaha Muqdisho oo horseed u horumarinta iyo u dooda xuquuqda haweenka iyo tan aadamaha guud caruurta iyo danyarta iyo intaan codkoodu meel badan gaari karin waxaa la jooga oo halkan fadhiya aan idin tiriyo waxa jira waa Xuseyna waa taariikh waxaa jooga gudoomiyaasha isku tagga haweenka ama kookuska waxa la yiraahdaa haweenka ee labada aqal ayaa nala jooga waxaa nala jooga gabdhaha wasiiro iyo wasiir ku xigeen iyo muxuu ahaa wasiirka koowaad ku xigeenkooda soo ahaan jiray waxaa nala jooga gabdho badan oo xildhibaan oo iyaduna labada aqal ka tirsan waxaa nala jooga madaxdii ururada haweenka ee Muqdisho waxaa nala jooga gabdhaha maanta ayaguna xildoon oo raadinaya inay doorashooyinka soo socota ka qayb qaataan waxaa nala jooga gabdhaha aqoonyahan iyo gabdho jaamacadaha ka yimid iyo siiba waxaan mahad gaar iyo sacab inaad ku soo dhaweysaan raba gabdhaha geesiyiinta ee 20 degmo ee Muqdisho oo ay hogaaminayso gudoomiye Jawaahir gabdhahaas ayaa nala jooga inta yadaas maanta waxaan isugu nimid kulanka iyaga kani maaha anigu hadda xamar sanad baan joogay iyo dhuusamareeb guddigii waxaan ku jiray loo xil saaray nabadeynta iyo dhismaha gobolka dawlad goboleedka Galmudug waxaan jeclahay inaan meeshan ka sheegno sababta ugu weyn oo isugu imaanayna waxa weeye amuuro badan waxa weeye masiirkeena inaan ka wada tashado waayahan oo dhan ururada haweenku waxay sameynayeen shirar isdaba jooga oo aan kulligayo u ololeynay oo aan ka hadlaynay in ay dhacdo wadankan doorasho annagu sugaysa boqolkiiba 30 la isku raacay in la siiyo iyadoo aan macquul la kala dhabiilin arrintaas wax badan doodayna shirarkaas u daba socda maxaan rabnaa anagoo dhan gabdhaha liidana waxaan rabnay inay dhacdo wadanka doorasho qof iyo cod kuma aanan kalsoonayn doorashada dadban laakiin waxaa jirta in la isku raacay masaalix aan garanayna aawadood iyo suuqa salaax in la qaato maanta arrintaas waxa ka taagan haysad kulul inkastoo la isu lagu heshiiyo dawlad goboleedyada iyo madaxweynuhu iyo ku heshiiyeen in doorashadii dadbaneyd ee aan la mahadin ee sharteeda uu ka badnaa khayrkeeda in la qaato haddana ayadii wareer baa ka taagan oo waa la isku afgaran la'yahay oo nin walba siduu rabaa inuu u samaysto annagu marka codkeena waa inaan ka hadalnaa waxaad maqashaan oo wax badan gabdhaheena ka maqlay inay soo baxday waayahan ila dadka siyaasiyiintu hadba erey bay caashaqaan slogan waxa la yiraahdo saamilayda siyaasadeed gabdho badan baa waxay arrintaas u qaateen saamilayda siyaasadeed ama ragga ereyga ku hadaaqaya waxay u qaateen saamilayda siyaasadeed inay tahay wax u gooniya niman siyaasiyiin ee aan anagu shaqo ku lahayn horta ereygan waa erey mustalax laga naqilay ereyga caanka ahaa oo la yaqaano oo markeeda hore ganacsiga ku yimid oo la yiraahdo stakeholders saamilayda dadka waxay isku darsadeen shirkadka laakiin taniyo 1984 arrintaas waa la dheereeyay waxa la yiri waxa ku jira dadka muxuu ahaa wax kansum gareeyo ibsada waxa ku jira ganacsatada badeecada keenaya waxa ku jira dad walba geli kara laakiin markii xagga siyaasad loo eego wax kale ma aha ereyga inkastoo aan la isku raacin ereyga inaan isticmaalno saamilay anigu basala aan soo jeedinaa inaan niraana inta daneeyayaasha waxaan danaynaynaa inaan waxa socdo wax ku leenahan danaynaynaa ereyga marka dhibsan mayno laakiin haddii macnaheedu ay tahay in la maqlo haddii ay tahay in la maqlo in la muujiyo qofku waxa aad danaynayso cod ku leedahay oo aad ka hadlayso yaa ugu wanaagsan oo siyaasadda wadanka qayb ka qaadan kara qaybta bulshada ugu weyn oo haweenka qaybta ayagu waxtarkoodu badan yahay
qaybta aan cidna kula loolami karin inay waddanka aan khayr mooyeen balaayo u keenin qaybta markii dhib dhaco iyo dagaalo dhaco ayagu dhibku ku dhacayo qaybtaas ayaa mudan in saamilayda ana daneeyaasha ugu daran ama stakeholders ayaga ah waana annaga waxaan jeclahay in idin sheegayaa maanta waxaan haysanaa ilaa 3 saacadood waad ku mahadsantihiin horta sida wanaagsan oo aad noo dhegaysanaysaan taa aynu ku waddo nidaamka wax dhan weeye inaan isdhegaysano wax dhan weeye maanta waxaan haysanaa 3 saacadood waxaan ka hadli doonaa hadda gabdho badan oo naga mid ah mawaadiic kala gadishan oo wada taabanaya wixii aynu noo suurtoobay tan iyo carta 20 sano la soo dhaafay wixii caqabadaha naga hor yimid sababaha keentay waxaan tiigsanayna iyo waxa aanu leenahay maanta shirkan aan ka filanayno markuu noo dhamaado maxaa noo soo bixi doona maxaa istaraatiijiyadan degsan doona arrimahaas oo dhan gabdhaha nooga hadlaya marka anigu waa inoo furahayaa kaliya waxaan idinku mahadinaynaa يعني سيدا ونكسنا والدعوة إنه واجبتين وأنا مهندس. حاج علمي أنت سوق قبل قابسي محي هيتو قدومي جواهر إيو من حد بعنا ذا كوليكس كيجا أصلا ترى مرت شرفتا قدومي ياشا محي هيتو حافظها من الشعرية برلماني دي سلامية قفل يوم مقام كوتشوجو يا سي احترام لو سلامية. maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin aan horta ilaahay uga mahadnaqaayo inuu inoo suuro geliyay gabdhihii ku fakeray in dib loo eego 20 sanadood wixii suuro galay waxa weeye arrin aad iyo aad u qiimo badan projectyadu ma hirgalaan ilaa dib u eegis lagu sameeyo kolba review lagu sameeyo 20 sano waxay 10 sano ka hor lagu sameeyo laakiin 20 هدينا وقاعدين الحمد لله هدي ما انت بالعبي وحكلام ما هذا بيان قبله عرتا عاش اي ليدر كوهاي بقول كنت بيها ابن ليلي دقالك اي بلابين ددالك اي سميين هرمرك اي كارسيين قبلها الصوماليين اي وقت قاعد يسوي بغيه شنيه 20 كرسي وحر أصلاً waxay ku sifoobeen wadaniya karti markaad ka tagto haweenimo iyo hansare ayay ku sifoobeen waxay noo sameeyeen ay ku dagaalamayeen maalinta ana kamida position ka gaaray kagamay hari halkaas waxay ku dagaalantay runtii waa la soo qiraaca shaxaaj cilmiina noqdo gabadhu u horeysay prime minister ku xigeen iyo foreign minister in badan caasho waan sheegay aad iyo si shakhsi ah iyo si haweenimo ah iyo si Soomaalinimo ah kaaga mahadnaqaynaa waa taariikh gashay Afrika waa la arkay gabdho madaxweynayaal waana jira runtii gabdho foreign minister ah laakiin laba qof taytalada isku haysta horta carabta kama dhicin shirarka markaan tago runtii carabta waxa la moodaa inay gabdhaha xaqiiqatan jaamacadda carabta markaan shirarka tago way soo taagi jireen kullu way iman jireen hambar iyo kor bad noo qaaday maaragtay waan xasuustaa shirkii tagay wuxuu ahaa shirkii maanta oo kale markii nala magacaabay ayaa caawa kale la ii yeedhay fiidkii 8-9 baan kala tagnay 6 saac waxay yeedhay madaxweynaha prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ii sheegeen subaxayna baxayo Djibouti tagayo Islamic conference dawladda islaamka shirkoodii Djibouti maalinta ka dhacaya inaan tago waxaan weydiiyay waxaan ku yiri mudanayaa laakiin wali la ima dhaarinin ma markaad soo noqotaa lagu dhaarin baxay yiraahdeen fiican baan uga qayb galay intii shirkaas oo akii maalinta u horeysay waxa guulo waaweyn programmo waaweyn baan ka soo helay shirarkii gudoomiye ku-xigeenadii Islamic Bank la kulmay hawlo badan baa ka soo qabsoomay runtii xagga tacliinta iyo xagga caafimaadka iyo barashada waaweyn bay noo ogolaadeen
ما ها كلية إن الصومالية اللي دقا قبل ما أنت يوتمي كلا دودي سو كلا حد بس issues كلا حد بس social issues runtii si fiican bay ka yeeleen haweenka caalamka dhibaatada aynu qabno ee ka ahga in la naxagliyo kulli waa la isla qabaa meel kasta oo tagto dunida waa laga hadlayaa gabdhaha dhibaatada haysata innaga se waxa inoo dheer qabyaalada inoo dheer iyo waxaan patrilineal la yiraahdo xagga aabaha ay qabiilkii ku abtirsanayeen waagii hore baa waynu lahayn dhaqanka maaragtay marka islaamku aanu inoo imanin islaamku waa diinteena macaan ee dumarka xoreysay runtii laakiin dhaqan carbeed baa hoosta kaga jiray oo carab baa inoo keentay asir dhageysan dhaqanka carabta haweenka dib u dhigay afrika geeska afrika waxa la yiraahdaa hadda akhrideen boqorada kaliya waxa laga gabdho badan oo boqorada jiray waqtigaas oo xukumi jiray geeska Soomaaliduna aad u badnayd runtii way kala luntay waa la qaybiyay waa dagaalo badan bay ku leeyahay laakiin Soomaalidu waligeed awood bay lahayd power weyn bay lahayd oo ku xukuman jirtay meelo badan oo kale adduunka oo ognahay ilaa Afrikada hoose ilaa meelo badan ilaa China inaga businesska u furnay oo Afrika uga ahayn ambassadorkii horreeyay Yusuf baa la oran jiray China iyo Soomaaliya markaan arrimaha dowladda ka shaqaynayay waxaan library baan ku lahayn waxaan ka hadlayaa waa wixii dagaalka ka horreeyay library-ga waxaa yaalay buugaag badan oo taariikhda Soomaalida ah wasaaradda library-geeda waxaa yaalay buu ka sheekeynaya taariikhda diblomaasiyadda safiirkii labaad ee adduunka Soomaaliga marka waxaynu gaadhnay meelo waaweyn haddaan u soo noqdo haweenka Soomaaliyeed I don't know ina taariikhdeeda haysaan dad iga aqoon badanna waa joogaan taariikhdan in badan iga badan waxa ani waan daawaday program ka sheekeynaya gabadh la oran jiray Faadima Ilay Malac Ureeji oo kale ay ka jawaabi kartaa Faadima Ilay gabadh Soomaaliyeed oo dhulkan xunta bay ahayd 1938 waqtiga Talyaanigu dhulka soo galay gabadh Soomaaliyeed ayaa ka ahayd leader wada clipkaas Faadima Ilay ninkii gaariga ku wadi jiray oo gaari faraskan boqorada lagu qaado ka sheekeynay ku qaadi jiray I don't know if kaynuu dhintay laakiin programka laba sano ka hor buu dubay isagoo 129 sano jiro aad iyo aad u daa laakiin maskaxdiisu taan tahay marka gabdhow waxaynu gaari karnay meelo badan laakiin dagaaladayna ragaadiyay xuquuqdaynu leenahay islaamka bayna siiyay wax badan doodo badan way ka jiraan laakiin waxay u badan tahay dumarku meel kasta way gaari karaan qofkii dood igala galayana diyaar baan u ahay waxa jira United Nations waxayna siisay xaq ay simayso xuquuqda siyaasadda islaamkuna حق وين بين السيرة وحا آياتها القرآن كأكمل إن السماء حق يعني لو بدل السكة حتى وحي كان عمال دويد والله جاي يا اللي يروح إنه إذا كان الرجل الدمر وحنا إذا كان القبائل الشعوب ساي سوبرتان markay aad ba islaamku inoo qadariyay aad buu inoo weynayay laakiin dalkeena si aynu u samata bixino waxaan ku soo noqonayaa six clan brilliant يعني فكرة laga fakaro oo
ومركز دن كستا أنا وكل شخصيا كأجي آد وقتناه وفقوي مرة دي ودياشي ماشي عاطفي أو ترى كبتي أو كبرونا يترير عيان أي كفر ديان إلى قبيل وحكومة الصدار الرير يسيدي لوكال حوق بدنا يسيدي لوكال تجيب بدنا قاعد كود رجع ماشي في الدي أي سحوق جيه كبروا واحد فكرين إنا هذا قبيل بانو نهاي قبيل فتحات اللي حات بانو نهاي واحد نقطتين كلمة قبيل بعد دكتور الجلسة ولا أفكر هذه بقى ما هتسنتين عاشا إنا أفكر بتاع واحدة جوه الجلية إنا كهر مرسان واحد كسر كل هديك الويد الشيخ الهاي 6 كلان أربع عام أنتم كوجلنا مضي ملكستان أو قفك تاريخها women empowerment هي كهر لا يسومالي يتمر كده كلمة داس واحد نقطة كلمة لا يعمل مركز 6 كلام وين النهاي قبيل منهين أنيقو مال بان كل شيء ودقيقو مال كلام كل شيء قبلنا نيجي وهاي مال كلام كل لتاي مركز وحوي سلا سينو أمباسطور روض النهاي برلمان كمان تا وحنكون فردنا تريا وحنكون دجال بينا بقول كي صدق كم بدنا هدين استراتيجية بيجانا وين هيك الرا لكن كما هيك الرا قبيل أنا موري واحد تاجرني ولي واحد تاجرنا هاي هلا جنبه 4.5 ولي واحد تاجرنا هاي قبلها الصومالية دي هرمرك الصومالية دلمها 4.5 وديد كرا مالك ما قاعد إنه 4 وأركيسا مركي لبدلي شرعي جاها 4 وين ما نبود كم هالقفرع بوق بدني الدود بدني يحمل ما كقول يعني جاي يدسكي له رأي جاها وحن كتير إنه وحن ما أنت دعية لو ما هشين دونه قلت لو ما هشين دونه إرجع لو ما هشين دونه أضي لو قف ولا ما يبقى أضي بوسة بيسانية أضي يا شرح تلو هشينه هلا جنبه ولي وحن تاجنا هاي 4.5 قبلها الدنو معها دك وين كبدنا بقول كيشني اللي إحنا هي كبدنا بيننا عد وحين نكوه لنا أنت اللي ضمن البرلمان هذا اللي ضمن الدمر كلين هالكرا أكوسوا بالقبيلة يا لما نبعدون كن دمر بود وده فهمي من وين كمل حوينها رواندا على صعد عند دولتيسا دمر كوا بقول كيشني اللي إحنا البرلمان كا دولتنا وبقول كي صدق هي اللي إحنا نمكان وزيرنا إننا وحكى لنا كلا يعني كجاك مال لينا Chinese كا إن ما تقدم بقول عقد بدن محي هتلا كمبني قال لها علي بابا لقمر دياس كرمالية ديسة بقول كي تضبعت ودمر شقاليس مركا وحنا China يا دمر كسومالية دو إن الإسلام هذا قاضو عندنا 4.5 وهي إنه عدو إنه يهاي إنه إنه بابينا يا وانا ما هتسنتهي وحن آدي من هذا حفلة قروح البطلة أنت سؤال سنتي أجل الله كسيو وحن سلام يا حبيبي أنا داري شرفت له سنة كذا داري شرفت له قبل كبنادر ونوجه تهرير هاد قبلنا ورمضة ورشدة ولا شيء عاش حاجة علمي هم بلي أيام كلها يا حبايب عبور بيننا واديك يهوش أبلودي هم بلي أيام لنا هوين كوا ترمي مدي بيا لمارين درما كوا في دي مدي بيا لمارين عبور تدري شوي مدي بيا لمارين دولة درفت سيودك يا على كنا دور دوام بلغ سيدعاء صور مارينا يا وينك هلقن كودي لا الوعد بيحينا يا طبعا تنسانو دمبا الليل لا بود احجيلي بلغ سيدعاء صور مارينا يا فايدة
مرو حاولت عاش حاجة حلوان حلوان مرة بسيمكي حلوان تقدر إسلام كاس الرئيس الحيانك فوسي حاجة هذا حلوان قبلها لبض الدولة البرلمانك فدرالك الصومالي أنا شركة السوقين قري مرويك آد قال يبغى halgamayaasha halkan fadhiya oo shirka maanta ayaga ka soo qayb galay gabdhaha kaleeto oo ayagana ka soo qayb galay gabdhaha 17 degmo ee gobolka Banaadir oo runtii aad u jecelahay una qiimo badan marway dowladeed oo ah gabadha ugu horeysay wasiir Soomaaliyeed noqota aniga runtii aad iyo aad qaali noogu ah marway fanaaniinta ay ugu horeyso marway Nkrumah maamadeena ma wada tirin karo laakiin wajiyada dhan waa ugu wada aad ugu qaali ah waaye ugaasadii waa fadhido maamo واسو عشاعو بدونيا أورك أورك واقعي ومكان شيء سميده الجوار بدون كلام كورك بلادي وكل ما ينهض الشغل بس معامر ضمان كسوق بلاش بلاش الصحافة آد بن سلام يا وحنكم سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد وعن روحكم ورئيسه
inaan ka mahadceliyo kulankan aadka u qiimaha badan ee maanta haweenkii Soomaaliyeed labaantoodii ay iskugu yimaadeen ciidii loo soo abaabushay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Raamina Xaaji iyo gruubkii soo abaabulay intaa markaan ka gudbo runtii haweenka Soomaaliyeed wixii ay ka soo qabteen dalkan iyo halgankii ay xornimo doonka wixii ay ka soo qabteen wax maanta halkan lagu koobi karaa dad kulligan ka wada sheekeen ma aha laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxaa loo yahay inay halganka dalka lagu xoreynayo ay hor socdeen dahabkooda u iibinayeen xabsiyada u galeen kordha u muleen dhibaato ay soo mareen isla markaa qaarkoodna ay ku dhinteen dagaalka ayagoo ku jira sida xawtaanka oo kale intaa markii loo gudbo halgankii loo halgamayay xornimadii la qaatay haweenka Soomaaliyeed tixgelin kama aysan helin wixii ay soo qabteen laguma tixgelin runtii markii burburku dhacay oo dowladdii muxuu ahaa ay naga burburteen haweenka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii istaagay samata bixinta qoysaska carruurta iyo qarannimadii oo dib u soo laabatay inay ka shaqeeyaan runtii waxaan xusuustaa shirka carta intaan la aadin 1993 waxaa nimankii haystay dalka oo hogaami kooxeedada ahaa ayaa waxaa loogu qabtay Addis Ababa shir haweenka Soomaaliyeed waa ka qayb galeen isla markaas nasiib wanaag waxay haweenkii meeshaas tagay ay sameeyeen inay intay gooni ka noqdaan ayaga ay yidhaahdaan anagu nimankaas lama soconay waa baabaana annagii ilmahanagii hanaloo meeday hanaloo taliyo waxaana ka siiyey markii la arkay inaan qofka naga soo jeedsano waxaan aad ugu faraxsanaa maanta inay goobjoog tahay ee duro ciraaji inay goobjoogtooda joogto waxay ahayd gabdho badan oo goobjoog ahaan way fadhiyaan laakiin in ayada codkii haweenka ay noogu hadashay oo noo soo jeedisay wixii baahideena ahay wixii aan qabnana aan ku sheegano meesha aan nidhaanaga nimankaas lama soconeen ilmo iyo haween baabaa iyo dad baabaan ka nimid hanaloo taliyo marka aad iyo aad bay xuquuqda haweenka ay u raadinayeen gabdhaha Soomaaliyeed nasiib wanaag markii intaa laga soo gudbay shirkii ku dhigay ee cartee la iskugu tegay haweenkii joogay waa wada fadhiyaan maamacaasha waa wuxuu ahaa miiska u fadhiistay fikir fiican ay keeneen yiraahdeen markay iyagu beelo Soomaaliyeed ku fadhiisteen annaguna beesha lixaad baan runtii kelmadaas beesha lixaad haddaan sii wadi lahayn oo markii la keenay aan sii wadi lahayn oo sii taabagelin lahayn haweenka nagu isku raaci lahayn oo aan iska burburin lahayn waxaan isleeyahay maanta meesha aan joogno ma aanan joogno runtii waa aad bay gabdhaha uga qoomameeyaan oo aan ka midka ahay xildhibaan Saamac Cabdiqaadir hadda aan isag fadhinay kelmadda beesha lixaad qofkii soo qaada waa waxay la tahay saaxiib waxay xusuusinadaasi ku haysa marka kelmadaas waxay ahayd fikirkaas waxaa fikir runtii aad u qiimo badan laakiin hadda haweenku ayaga iskaga dhiftay laad oo maaragtay meeshaas beelihii baan kala raacnay haddaan kala raacnay beelaha waa u dhalanay laakiin waxaan islahayn wuxuun baa lagu weelayaa meesha la joogaa looga sii hormarayaa ismaana lahayn wax iska daadiya marka Soomaalida waxay ku maahmahdaan caano daatay dabadeeda la qabtaa marka waxaan isleeyahay hadda waa la daba qaban karaa intaa markaan ku gudbo guushii kasoo bilaabatay carta ee gabdhaha Soomaaliyeed muxuu ahay beeshii lixaad la baxay ee runtii keeneen guushii ugu magaca iyo qiimaha badneed waxay guushii ugu eedeysay ee gabdhaha ay siyaasadda 25 kursi ku keeneen 25 kursi oo baarlamaanka ay ku keeneen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Marwo Caashe Xaaji Cilmi hogaamiyihii miiska u fadhiyay markaas haweenka u doodayo fikrigooda inay maanta meeshaan nala fadhido aad baan ugu mahadcelinaynaa laakiin waxaan rabaa dadaalku maalin waa soo bilowdaa laakiin dhammaadkiisa meel uu ku dhammaaduu leeyahay waxaan isleenahay halgankii kor buu noo joogaa waa wadnaa haddii la yiraahdo intaas gabdhaha Soomaaliyeed waxay ogtihiin maanta
kuraasta baarlamaanka waxa waaye waxaan ku fadhinaa waxaan u doodi jirnay boqolkiiba 30 iyo wixii ka badan laakiin boqolkiiba 30 iyo wixii ka badan waxaan maanta ku fadhinaa boqolkiiba 40 kursi ee gabdhaha baarlamaanka ku fadhiya weli lama buuxsanin boqolkiiba 30 iyo wixii ka badan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inay noo buuxsan doonto haddii la yiraahdo waxaa sidoo kale ayakana intaas dowladihii soo dhismaya iyagana kamid ahaa gabdho golaha wasiirada kamid noqda oo markii ugu horeysay ay ahayd inaan wasiir amniga dibadeed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen aan qaadano oo hadda ay gorjoog tahay fawsiye xajaado intaas la soo marayo waxaan islenahay dowladdan hadda muxuu ahaa ra-iisul wasaare roble baa golaha wasiirada noogu roonay waxay la siiyeen 4 wasiir haweenka iyo 4 wasiir dowlad afar wasiir ku-xigeen iyo 1 wasiir dowlad waa dowladda noogu fiicneed oo lasoo dhigay xukuumaddii lasoo dhisoo noogu fiicneed inta intaas la siisay waa wanaaggelinayna intaan markaa ka gudbo waxaa hadalka ma raba inaan ku dheereeyo dad badan baa dhiman calawa walaalayaalow intaas oo dhib ah iyo intaas oo horra oo haweenka soomaaliyeed soo mareen maanta loo baahan yahay inaan halgankii gadaal u noqonin waxaan rabaa inaan haweenka soomaaliyeed ee halkan fadhiya iyo kuwa maqlayaba baaq ugu diro waa la socotaan siyaasada isdiidan baa ka jira dalka waxaan ka codsanayaa oo kugu baaqayaa siyaasadahaas isdiidan inaysan haweenku ka mid noqonin inaan haweenku ka mid noqonin isla markaas dowladnimadii annagu haween ahaan aan aasaasiyaasha u ahayn oo burburkii kadib annaga haddaanay gabdhaha soomaaliyeed dadaalkaa sameynay aan isleenaha ma dhisanteen in maxay ahayd horey inay usii socoto inaan ka shaqeyno oo garab ku siino ee aanaan dadaal wadayninoon annagu inta muxuu ahaa mucaaradka ku noqonaysa ama maxay diidaysaa inaan ka mid noqon haddaan haweenay sababtoo ah qofku waxaa rabaa inuu maslaxadiisa yaqaano annaga haddaan haweenahay dagaal dan nooguma jirto wax dagaal danu noogu jiro yaadaysdiyo wax ku jira ma jira waxay dan noogu jirtaa dowladnimadaas hore u socota waxay dan noogu jirtaa ilmaheena oo loo shaqeeya nabadgelyada aan kusoo wada arurkii waxbarashaada iyo hooyadii suuqa aadan iyo kulli intaan nabad isku nimaana gurigeena aan nabad kusoo gallaan wax walba nooga fiican marka taas waxaan rabaa inaan haweenka soomaaliyeed aan ayagana ugu daaqo intaa kadib waxay ahayd inaan u horumariyo laakiin uma horumarin waxaan rabaa inaan fataxa u rino una tacsiyeyno dhallinyaradii lagu xasuuqay habeenkana halkaas annaga dhalnay waa wiilasheedii aad iyo aad haweenka lamidaha kusoo dadaalay oo maaragtay soo geliyey waqti badan meeshan waxaa yaal dastuurka beelgaarka ah oo dhamaystir u baahan horta dastuur intuu ka bilowda carte keeni hore haddaa xasuustii 6 ka ahayd kacaanka wuu laabay labada waraaqana ku xukumay awoodaa jirtay markii dambana waxaa laga soo qaadanaya mar walba kii 6 ka ah qodobka loo baahan yahay markaasaa loo xidhiidha dastuur la qoro oo lagu heshiiyo wuxuu ka bilowday dowladda carte qaatidii waa joogtaa waxay idin la sii wado haddana markaa dib bagaanta la tegay waxaa la soo qoray axdii ku-meelgaarka ah oo isaga laga sii sameeyey dastuurkan waa fahmi kartaysi wax dad ay qorayaan oo aan kitaab ahayn qalad badan ka soo bixi karo laakiin nuxurka markaa u dhaadhaco waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha haweenka markaan ka hadlayo waxaan rabaa waxaa kaloo in aad iska taagtaan faraha ka qaadaan isdul taagtaan xuquuqda aadanaha iyo waxa iyo aasaaska dastuurka wuxuu leeyahay mabaadi'da u horeyso ee haweenku xusan yihiin qodobkaas waa la daciifsadaa oo qodobka sharaad ah oo inaan wax doorasho geli karno inaan sharci u leenahay qodob 3 tiiro dowladda si loo yareeyaa marka baarlamaanka joogno ama marka dowladda lagu dhex jiraa marka waxaan u baahannahay waxay iga soo horjeedaysaa maxamed axmed saaxiibtay sabiday oo dad badan nool samaysay dariiqaanada ah waxay ilaalinta ka mid yihiin hadda in hoos loo dhaadhaco oo xuquuqda aadanaha markii la galayo kuwa haweenka ah dulman iyo dhalinyarada inkasta Soomaaliya dulmanta in la helo xuquuqda aadanaha waxay sameynaysaa waxaa dastuurka koowaad waxaa ku jirta qodobka koowaad 15 qodob waxa koowaad looga dhigo waxay ahayd ilaahay ayaa nasiix xaq
لا يمكن كسير حيث قفت وحين ليس أيضا حرة حقوق دي لنا marka shariicada islaamka ay ku fadhida marka arintaas waxay keenaysaa in lagu dowro qofka bini'aadamka oo Ilaahay abuuray oo shakhsiga ah iyo muxuu wixii xiriira arinta meesha taa waxay tahay in laga bilaabo sinaanta macnaheeda si kala markii loo fasiro waa qalad laakiin Ilaahay xaqiisa iyo diinta xaqeeda sheekhadeeda caashugaasa joogto ragay dumarka Ilaahay waa u simeeyeen dhaqanka diinta iyo habka wanaagsan oo muxuu loo isticmaalayo waa u simeeyeen marka arintaas daraadeed waxay u baahan tahay in muxuu ahaay dad looga fiirsado marka si guud galo هذا أبو فرح صورة السودوين تقدر من السودوين هذا كل وناكسر البروي بعدين وكم هالسنة قبلك سوق قيب قليل سيد قروح البدر قبل قبلات وسوق قيب قليل يحرك ذوله سوي العلة ذوله مريض على أنا قليها هذا الدور يكون حاجة علمها بوشة أي جوابت هاي بس ما هذا البدر أي جواهر كيو حوار بشوع وحاجة رجعت حاجة وجامعية وبشرة درات جودة كمعي وحكي لك سو حلقة من بالله سيد هذا البرنامج قبل البلاد كسر كاتو قبلها الدمويك قبلها حافظها يعني يجن أي برتان حق إليه وولي بقى وقت كان خلو والدورش اللي جلاي الدموم من بود هله فيو بس لا نقولي لك سلمي هيك الدروع إلى برتان إنه يتغيران ودورش اللي وحيا أريداس معها إن أفور الجبين تعب بحاجة كبتها السوق الحق ولا نهاية إلا الدورته أنا قد أروح دورنا مركز وحاجة الله وقت وعليلي وبديه ذكر بينه السوق مركز سفع على الله وسفع على الله حقوق على المروة وضغطها لكن هذه هاي أنا قد لبسين أنا برن نبكم بقول ما أنا برش الله markii la barto qodobka salaastunta wuxuu yahay qodob Allah qodobka diinta oo soo jeedo qoran ma jiro wixii dhamay diinta ku soo adana diinta dhexdeeda anaga ku dulmiyo oo toban magac loo yeero oo dad ku xadgudbo xaq Ilaahay ma wixii sabeeyay bartooda keenaya ana mar raba inaan qof wax ka sheego laakiin dibka meesha waxay tahay gabadha jirkeeda lagu xadgudbi karo شخصيتي المحد بكرو شرفتي المحد بكرو حتى قبل انتيالو وبريها بركور وأمريكا الغراي شقادة وكانت تقول لها ولي ببيستان لبعتوي مدرك العام وقال لغي وأبكي سنة قبل وضم بيسي وضبق على القطور لها وحيدا شغال وسيلها قبل الجامعة دي مدريين وصوت قلت بشيء بحب باهيين مع شغيستان مركاتين وعلي شكاسي أما الوعي اللي نقاله أما الوعي شغل حفل شغل يبيش قبل ذيك القناة مركب حرب باحنا هاي وصار الشيء وقت وعليه عندك عسياشي وحنا قويسك تسوق قوية قويسك عندنا قوية جمعه اللي عادي إلهي مركب أبوري حاول أبوري إنها كاترك في السعودة وأريد ديننا نروح والبق ولا سكيت علينا كمان أنك أمبيري النبياش كلي أنا كمنها أنت كانت أوليدا كمنها شايفة كمنها وحنا رأينا قبلها كدوريو إنك السؤال سعره هو شخص كجستو الشريعة الإسلامية سفي على الوقت معها كلية من كفير الحلقة وحنا قاضي لك الشريعة السيدة حق الشريعة وحنا عندنا يسار إلى الحر الحي وحنا الحق ولا كنا وحرر أنا أنت أذكر دافع هذا اللي ما رأينا الحسوسية عرفت عليك ويجوبي ما معاش حل قيمة يسوع وراسته ما عرفت أضرب بيسوشيال تكوسي هواك شيء لما تك هواك القيمة هاي موقف حرش عمل أنا يلا واي واحد هاد من شنت الوقعته شنت أصله قاعدة هاي وحقسم كل بنا هنا على كلام بس 4.5 على القاعدة وأكون بيسنا وحقول لي وعمل ويترى عن شيء كسر عمل حاجة أنا كسر ديني
تعسير بحسن الله ونحرسته قضبك عاشة هيك maalintii baxsan ee madaxweynaha u dirtay fariinta oo carta tagay markuu wuxuu joogay Djibouti oo uu ka hadlay ku siiyay alaabta la saaray oo buraal dilay oo isku way qofti ku hagoogtay oo halka ka muuqatay qofkeeda waxay ahayd maash marka arrintaas waxay ahayd culus oo la gaarsiinay boqolka kursiyo la siiyo ergada ahayd iyo shay 20 ka soo baxday waxa ku helnay kala 6 qodobkaas hadafkan noocyada badan loo isticmaalo waxaan rabaa inay xasuusiyo farmaash markii xamar la yimid qabiil kasta gabliisi watay ma iyaga siiyay kuraas annaga siiyay ma inay aadaan waxaan salaamayaa gabdhaha ururka gobolka Banaadir waxaan salaamayaa dhammaan gabdhaha ka soo qayb galay munaasabada quruxda badan saxaafadda dhammaantiin waxay ugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdi salaam maanta sharaf ayaan oo tahay anagoo isku duuban inaan joogno maxaa shalay soo qabanay gabdhaha maxay dhibaato soo mareen maanta maxay haystaan wax laga sheekeyn kara maaha maanta waa laga sheekeynaa haddii la yidhaahdo sanooyin ay qaadanaysaa inta ugu badan gabdhaheennii maanta siyaasadda meelaha waaweyn ugu jiro ayaa ka sheekeeyey halgan dheer ayaa loo soo maray kuraasta maanta aan ku lolamayno ama ku fadhino ama ku xarakoyno ama aan ku matalna gabdhahaba usoo mareen gabdha Soomaaliyeed dhexda usoo xirtay xilligii cabtay intii ka horeysayba ilaa dhexdameeyay gabdhaha Soomaaliyeed way nool yihiin marna lagama yaabo inay meeshii ay ugu aadan yihiin horumarka ama dowladnimada inay baabi'iyaan waxaan diyaar u nahay maalin walba inaan u shaqeyno dalka iyo dadkaba waxaan diyaar u nahay inaan u dhimano waxaan diyaar u nahay wax walba wadanka ama dowladnimada lagu xoojinayo inaan kaalin weyn ka qaadano aadan kaaga mahadcelinaa mamcaasho halkii ka dheeraaya usoo gashay maanta inay gabdhaha baarlamaanka si wanaagsan ay ugu jiraan weli aan ka maqannahay xuquuqdii boqolkiiba 30 ee naga sii maqan yihiin aan rajeynayna 4 sano soo socotaba inay boqolkiiba 30 ama ka badan aan heli doono annaga haddaan shaqayno meel waxaan u malaynaa inaysan ka geyn doonin ragga Soomaaliyeed aan ayagana ku celinayno sidaad ogtihiin gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho aad u adkaysi badan xaalad adag soo maray ku soo shaqeeyay marna aanan ka jiifanin gabdhaha Soomaaliyeed caawa maanta halkan u wada badan waa gabdho ku shaqeeya halganka isxilqaanka u taagan maalin walba qaraxa ku dhinta wiilkeeda ku dhinta ninkeeda ku dhinta aabaheeda ku dhinta haddana aysan ka jirin inay dowladnimada ay u shaqeynaysay maalinba ka istaagto annaga kaas ayaa naga go-an gabdhaheennii waxaan rabnaa maanta barnaamijkaaleetii gabdhaha inay isku duubnaadaan ee ka shaqeeyaan waay maxaa ka maqan sidee ku heli karnaa annagoo isku duuban aan ku heli karnaa waxaa naga maqan aan raadinayna ee tahay mar walba ee wanaagga tahay wax naga maqan annaga xumaan qayb kama nihi dowladda burburkeeda qayb kama nihi waxa siyaasadda isdiidan annaga qayb kama nihi annaga dowladnimaana deeqo haddaan gabdhaha Soomaaliyeedna dowladnimaana deeqdo inaan adkayno maanta xaaladda ay marayso wax walbaba taariikh ayay leedahay gobolka Banaadir haddaan taariikh usoo qaato waxaa soo maray dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in maanta gudoomiye ku-xigeen gobol iyo xogeeye gobol ay ka helaan hadda ay gudoomiye ku-xigeen gobol ay ka haystaan gudoomiyaal degmooyin ilaa 5 gabdhood inay helaan weligeeda ma lihin wax dhacayna ma ahayn marka dadaalka inaan intaas ka sii badno aan annaga meel walba xuquuq aan ku leenahay aan raadino waa mid naga go-an aadaan ugu mahadcelinaa inta soo diyaarisay barnaamijkaaleeti waa muhiim mar walba gabdhaha in lagu dhiirigeliyo gabdhaha in loo sheego siyaasadda shalay meeshay ka joogeen maanta maxay ka joogaan beri maxay heli doonaan taasi waa mid naga go-an inaan gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ka shaqeyno waxaan iiga wadaa message yar madaxweynihiina carta oo ii soo salaamayay xalaya waxaa ila soo hadashay mudane caasho arrimaha ka wada hadalnay aabana igu salaamay tiri marka anigu salaanta gaarsiinayo aan u sheegay programka marka wuxuu dhahay gabdhaha aad iigu salaam gabdhahani laga soo halgamay
gabdhahayna maanta dowladda maanta jirtay dowladihii ka horeysay iyo cartaba gabdhaha keenanu dhahay marka aad iyo aad aan ugu soo salaameynaa mudana caash soo dhowo mudanayaasha wasiiraheena hawlfoofiyo haweenteena kala caamilo horta wax lagu farxo waaye maanta maxay ahayd dowladnimada maanta jirto waa dowladnimadii carto ka dhalatay waana alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala fadligiisa waaye uma waxaa lahaa raggii iyo gabdhihii oo maanta inta nala fadhiyaan qaarkooda waa mucleeji maamacaasha iyo kulli marka maxay ahayd dowladnimada horta wax qaali ah waaye gabdho annaka hadda dibaddaan ku noolnahay laakiin maalin kasta waa nila soo halgabnaa codkiinaan ku hadalnaa waa nila soo shaqaynaa haddana saasaan u imaanay marka mar kasta waxaa waaye waxaa la dhahaa cabdiqaasim wuxuu ka hadlaa qur-aan iyo dowladnimo hadda waxaa waaye aabahay waxaa waaye dowlad mar kasta inay dowlad jirto mar kasta inay dowladda ay socoto mar kasta cadda iftiinkii ka dhashay inuu horuu socdo aan ugu dadaalayaa nabigeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaha ama qul khayr ama usmud soo maha ama khayr sheeg ama aamus marka madaxweynihina carabta oo boqolkiiba boqol ii salaamaayay waxaa waaye maalin kasta wixii dowladnimo ku saabsan no matter who's there uu ka hadlayaa mar kastana waxaa ii dhahayaa dowladnimaduna xoojiya because dowladnimadaan oo maanta aan fadhino iyo biiskaan iyo quruxdaan aan maanta fadhino gabdhaha mudanayaashaan meeshaan fadhiyo oo maamacaashihu u koo yihiin iyo raggii aabeeni oo ka mid ahaa waay dadka keenay marka dadkiina weyn qadariya dowladdiinana suboorti garaya lidhaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guulahan madasha gabadha maalintaa shir guddoonka noo ay xildhibaanadeedii caashe xaaji cilmi ee marna aniga walaashay ah oo runtii aan ku faanaayo inay tahay walaashay marka ay tagtay guriga prime ministerkana mansabka ugu horreeya waa la sheegay oo fawsiya waxay noo noqotay wasiir arrimaha dibadeed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo gabdhaha soomaaliyeed taariikhda ugu horreysay waxaa nala fadhiya wasiirkii ugu horreeyey ee dowladdii maaragtay xilligii kacaanka waxaa nala jooga guddoomiyaheena hore tarsal xaasiisi shamsaa joogta waxaa joogta oo aan ku xasuusanayno tarsal inuu ahaa guddoomiyaheenii haweenka gobolka banaadir aniga markaan ahaa guddoomiyaheena magacaabay waxaa nala joogta gabadhii ugu horreysay ee noqota xildhibaan xaawiyaday gabadheedii ayaa madasha fadhida ilaahay oo naxariisto waa ujeedaan gabdhaha soomaaliyeed ma kala maqna qurbajoogtii iyo dhagax iyo tin badan oo kalena way nagu soo siyaadeen soo dhawaada magaaladan waa magaaladeeni waxaa jooga v o da nala jooga xasan kaafka qoystaan ujeedaa iyo dad kaloo badan waa mahadsantihiin aniga waxaan usoo istaagay oo aan meesha waa banal qof walba wuxuu leeyahay topic iyadoo ay joogto guddoomiyahii arrimaha bulshada guddoomiye basma oo ah kursiga ugu sarreeya haweenka gobolka aan ku faano oo ah duuliya cabdikadi maalintii waxay la tahay dowladda laga keenay cartaa waxaa la keenay magaalada muqdisho maalintaas waxay la tahay dowladnimada soomaaliyeed waxay ka duulaysa meel cidlaa zero maanan haysanin wax walbaba dadka soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed magacooda anoo raba inaan uga mahad celiyo inaan halkaan aan uga mahad celino madaxweynaha iyo shacabka reer jabuuti inaan dhaano ismaaciil cumar geele waa mahadsan tahay mudana madaxweyne waa mahadsantiin waxaan rabnaa marka fursadan inaan aada uga faa'iidaysano ha noolaato Soomaaliya marka magaalada Muqdisho meesha hadda aan joogno iyo meelo badanba waxa haystay cadowgii arxalaawayaasha ahaa oo magaalada inta ugu badan gacanta ku haystay halgankii markii la galay maamulka gobolka banaadir ee markaas anigu aan ka tirsanaa tarsan guddoomiyaheena uu ka ahaa guddoomiye waxaan bilownay abaabul iyo in bulshada la dhex galo oo aan ciidamada iyo dadka fundraising la sameeyo aan jiido ugu tagno ciidamadaas waxaan ku dhiirigelinaynay inaanay aagga ay ku jiraan aanay dib uga soo bixin waxaa nooga dhintay dad aada u qiimo badan oo ka mid ahaa
markaas dadkii aan ujeedooda tagaynay marka laga reebo ciidamada qalabka sida iyo walaalaha amisom aan u mahad celinayno oo markaas dowladnimadeena aad u taageerayeen annaga ka haweenka gobolka banaadir ahaan waxay noo ahayd maalmo murugo waayo magaalada muqdisho waxay ahayd meeshii qaranka soomaaliyeed oo ku burburay uu ku dumay dadka soomaaliyeed oo qoyska ahna ay ku kala tageen waxaan u istaagnay soomaaliya ay dib isugu soo noqoto haweenka soomaaliyeedna inaan ku baraarujino gabdhaha quruxda badan ee hadda hoolka fadhiya markay galayaan degmada maynan awoodin inay dharka calanka ama maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay soo xirtaan ayadoo dhumanaysa oo halkan ku sugata ayay geli jirtay markaas degmada meeshaan hooyadii waxaa fadhido nagruma oo maanta nagu soo hartay sayga markay ka baxday garabkeena inaa taagan gabdhaha 17 degmo oo maanta aan ku jiifno iyaga wax markaan sheego basma markaan maqashiinay waa gobolka banaadir iyo jawaahin ururada civil society-ga maama shamsa tartan asal ku xasuusanaa markii dowladda ay 5 degmo haysatay oo gudoomiyaha ahaa habaar uu habaari jiray xataa nabadiidka intaas aan ku faraxsanay 5 degmada waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxay ahayn gabdhihii sameyn jiray aan barnay inay gulisiyeenta iyo nabadeynta sameeyaan petroleumka oo sidisa waa xamar jajab xamar weyne waa beri wadiigle waxay ahayn wadajir sheega horseed inaa xamar diin intaasay waxaa waxaa ka kooban yihiin 60 gabdhood oo deegaanka ah 20 gabdhood oo biliiska degmo kasta iyo 20 gabdhood oo gabdhaha IDP-ga noo ahaa barakacayaasha si nabad ugu helo marka waa ku faraxsanay maanta hadda intaas sidaa horta maanta wix alla wixii sheekar waa la sheegay aan si dhageysana marka waxaan jecelnaa kistiran hadlay inaan ka faa'iideysan maanta taariikhda meesha ka socoto aniga 2000 soo magalay xamar imiday gabadhii yareedo ina cabdiqaasin markii madaxweynaha caruushan deganaa markaan ka arkay madaxweyne iyo sidii loo soo dhaweeyay markaasaan anigii soo baxaan inta imida waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay cabdiqaasin xaaskiisa bibi cumar baarafuusi iyo zahra cumar maalin maxaan kolejaale markii la yidhi waxay jirtay maxaa ku wata askari maxaa ku wata maalintii madaxweynaha u sheegay madaxweyne maxaa ku wata madaxweyne waa xagana waxaa la rabaa isbirays waxay ku tusaysaa guri kasta oo fiican waxa ogaataa hooya ka dambayso nin kasta oo wanaagsan aan aragnane waxaa ka dambaysa marwo fiican cabdiqaasin qeer allah siiyo intuu nala joogay aad iyo aad oo haweenka daanoo dhagaan qabtay isbitaalkaas banaadir aan firno walaasha xaliis fa joogto iyo gabdho badan oo naga dhintay allah u naxariiste madiina janaan iyo caasho joofay kulli allah u naxariiste marka waxa waa nolosha aan soo marnay waxay madar aan ka soo qaadnay xildhibaanadan iyo noloshaan jirto ma jirin biliiska ma la bisan karin militariga ma la bisan karin waxaan jeclaan inaan ismaqlo digoo iska fadhiisana waxaan rabnaa marka inaan sheego meesha ay baycaasho ka soo bilowday sida loo sii waday hala turnaanturooda hala kufo hala isgareeyo maanta waxaan taagnaa meel aad u qurux badan waxaan soo marnay cabdiqaasin kabacdi cabdullaahi yuusuf sheekh shariif nin kasta meel ka soo qaaday waxaan rabaa bani aadamka inaa saxanta leeyahay meesha gaar waxaad ogaateen dowladnimada maanta joogto oo xasan sheekh ku wareegtay xadra farmaajo meel laga soo qaaday nin kasta meel ka wada xasan sheekh waa tan ogna prime minister waxaan helnay gabar ah waxaan rabaa ninka waxaan uga xasuustay ninkii wanaagiisa iskale madaxweyne noo noqday ilaahay waxaan ka baryaynaa hore inaan u socomaan gadaal baan u noqonin waxaad ogaataan haweenka soomaaliyeed mid laga rabo marka maanta aan joogo maxay tahay abay caasho waxaan ayagu tala u soo jeedinay ahayd in meesha qofka bini aadamka markuu wax sameeyo horta waa mahadsantahay in la yidhaah gabdhaha soomaalida maanta xamar joogana sii banaadir waxaan aad u faraxsanaa waxay tahay in maanta la arko gabdhihii qaranka gabdhihii gobolka banaadir gabdhihii civil society-ga xildhibaanadoodii maxaad rabaa maamulada kale wax madaxda ka ahaa wasiirada iyo hadday joogaan hadda intaasoo dhan oo maanta wada fadhiga horta waa farxad ha kaa harto gabdhaha waa kala socdaan caasha madaxeeda allaha raajiy faataxad u mara isukaanka maanta isu keentay waxay muujinaysaa annagoo ku jirno waqti kritikal ah
oo aanu rabno inaan u gudubno doorasho iyo aan aadno haddana gabdhiyo kala qaybsan waana dhibi lahayd maanta gabdhahan xamar joogo qaarkood waxaa dhici karta inay gobollada aadaan oo doorasho aadaan markay aadaan waxaa rabaa inay ka horeyso gabdho kaleeto annaga sirsay dadaan nahay waa idiin sii dadaalnay shalna waa u dadaalnay gabdhahan maanta meesha joogo 24 la xilli agteena kama qorno annaga 30 waa quutada aan rabno inaan tagno 30 wax u rabnaa in ka badan waxay maakartiin in tartan kala tartanto laakiin kuraasta gabdhaha oo mapping noogu jiro inay soo baxaan rabnaa waa koow ilaahay agtiisa wuxuu kama ahan hadday niyaddeena nadiif tahay haddaan gabdhahan istaakulayno in alle inta rabto inta joogto oo wanaagsaneed gabdhihii joogay oo baxay oo maanta qaarna ka tegi doonaan qaarna kusoo noqon doonaan waxbay soo qabteen aas-aasay noo soo sameeyeen ilaa 24 waa ognahay xoogay ku keeneen oo dhib ay tahay laakiin 24kaas annaga uma socoto haddana hooyooyinka Soomaaliyeed ee iskaal banaadir furidooda ka bilaabay oo kooxda istaagi jiray wuxuu istaagayna xuquuqda aan leenahay inaan helnay ahayd waan 130 kan waaye waxaad ogaataan maanta waxay noo tahay fursad qaali ah noo tahay caasho iyo gabdhihii arta jooga iyo maxaa tiraahdaa intii soo halgantay iyo inta degmooyin ka timid inay ogaadaan horta gabar kasta oo Soomaaliyeed dhagax wanaag ay dhigto in la qaadayo gabar Soomaaliyeed kuma jirto kooxad qof hor loo qaato ma jirto gabdhahena waxaan ku jirnay ama asaay inaan qaadno ama awlaadena aan duugno ama aan maxaa tiraahdaa dhibaato ku jirno oo suuqaas aan weli dhex fadhino raggina inkii suuqa hadda islaantiis ka soo shaqeyso oo guriga uusan ka warqabin dhibkan heestaas ay tahay waxaad ogaataan si aan taas asaas ku dhamayno annaga haddana ururada bulshada waxaan ka dalnaa inteen ka liidanaa waxa waa hooyada Soomaaliyeed 5 waqti hadday dukato waxay tahay nasiib inta kale waxay ordaysaa inay wax raadiso inaan gabdhaha jaamacadaha soo dhisno marka hore ka bilaabno jaamacadaha aan ugu dhigto inay noqoto qaanuun iyo sharciye maanta waxaa laga joogaa 10 sano ugu yaraan 60 gabdhood waxaan qabnaa ama master ah ama PhD holder ah oo diinta xaggeed ku saabsan taas farxad waa amray kula jooga qaar shaqay asraa mahadsantihiin annaga maanta aan magaysiin laakiin waxa hadda ka dambeeyo qodbo kastoo la akhrina waa dhegaysanaynaa waa qoranaynaa maxaa naga dhiman aan u ordaynaa maxaa jira intaasoo sano airportka annagaa taagnay madaxweyne yimaado governorka yimaado waxa u socda waxay ahayn gabdhahaas 14 ahay oo dhib qaba oo lugeynaayo marka waqtiga iga dhamaaday waxaad yeelaysiin oo aan hor u soconno abay caasho fawziya maxadra basma waxaad ogaataan weli socodaan la sugaayo waxba nooma dhammaanin ku soo dhawaada inta xamar inta ka maqneed ha ku soo dhawaato shamsa waxaan ku faraxsanahay adiga ruuxaaga inaad nala joogtid ma ogeyn waxaad ogaataan hooyooyinka qaarkood oo aan masax saas u fuulay agoontay kaalmeeyaan la socda agoon kaalmeeya waa salaam calaykum waraxmatullahi horta marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo gabdhihii fikradan lahaa oo maxay ahayd sukaayo keenay oo maxay ahayd 20 sano ee la soo dhaafay wixii noo soo qabsoomay iyo taariikhda maxay ahayd wixii ay haweenka Soomaaliyeed ka soo qabteen iyo waxay ka soo mutaysteen in dib loo xasuusto la isku yimaado ra'yigeeda lahaa ilaahay abaal ha idinka siiyo waa mahadsantihiin hadalkayga maxay ahayd waxaan ku bilaabayaa waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago quote uu yiri nin la yiraahdo Henry Ford ingiriisaan idinku sheegaya dan af Soomaalina waa idinku macnaynaya Henry Ford wuxuu yiri coming together is the beginning staying together is progress and working together is success isku imaatinku waa bilow inuu dadku isku yimaado waa meesha wax walba ka bilowdaan wada joogistuna waa horumar inay dadku wada joogaan ay maxay wixii ay bilaabeen sii wadaan waa horumar wada shaqayntuna waa guul marka waxaa xusuus mudan in guul walba oo la gaaro ay meel kasoo unkantay waxay wasiir fawziya iyo gabdhihii maxay ahayd siyaasiyiintaha ee nala hadla noo sheegeen in haweenka Soomaaliyeed gaareen horumar la taaban karo oo ay ku yeesheen dowladihii istaba joogay ee ku soo qortay maxay ahayd shirki arti kadib waxaa inoo sharaf ah in Caasho Xaaji Cilmi noo tahay maanta
wixii ay dadka dalka iyo haweenka iyo danyarta Soomaaliyeed u qabatay caalamka ku abaalmariyay ummadda Soomaaliyeedna ay uga mutaysatay duco badan waxaa la yiraahdaa oo runna ah man laa yashkuru Allah laa yashkuru naas qofku haddii uusan u mahad celinin dadka ilaahayna uma mahad celiyo haddii aan dib ka fiirino daryeelka iyo xuquuqda haweenka Soomaaliyeed waqtigii oo maxay ahayd oo afku juuqda gabay haddii aanan u mahad celinin annagu qofkii u taagnaa danta daryeelka iyo xuquuqda haweenka Soomaaliyeed waqtigii afku juuqda gabay ee qoriga keliya lagu hadlaayay waxaan noqonaynaa dad aan abaal lahayn taariikhdoodana aan qiimayn waxna aan gelinin sidaas daraadeed anigoo ku hadlaaya magaca haweenka halkaan isugu yimid iyo haweenka Soomaaliyeed oo meel walba maxay ahayd dacallada adduunka ka joogaan waxaan jeclaan lahaa first of all inaan maxay iraahdo Abay Caasho mahadsanid thank you very much nolosha adduunka nolol bini aadam ku noolaada tan ugu fiican nolosha aakhirana ilaahay waxaan kaaga baryaynaa jannatul firdawsati la'ala markaan intaas uga baxo mahadnaqii iyo ducadii waxaan doonayaa inaan wax yar ka soo qaado taariikh nololeedkii iyo waxqabadka raadraaca leh ee walaasheen Caasho Xaaji Cilmi raadraacaasoo haddaad qof walba idinka mida uu internetka galo uu si fiican uga boganayo Caasho Xaaji Cilmi waxay hormuud u ahayd koox haween oo abuuray dumar isku duuban oo isku dan ah oo markii ugu horreysay ka abuuray arte dhaqdhaqaaq haween oo aan qabiilku abtirsan si loo dhaqangeliyo aragti haweeneed oo nabad ku salaysan kana horjeeda aragtidii qabyaalada ku salaysneed ee waqtigaas jirtay aragtideeda fog iyo geesinimadeeda waxay haweenka Soomaaliyeed ku horseedeen fursad ay uga qayb galaan shirkii arte iyagoo kaaba qabiiladii iyo hogaamiye kooxeedyadii waqtigaasi ay ka soo horjeedeen Caasho waxay hormuud u ahayd kacdoonkii u bareeray soo shaabixinta qabiilka lixaad internetka dalgasho 6 years plan waxaad helaysaa macluumaad fiican oo aadan maxay weligaa aadan maqlin waxay Caasho ka mid noqotay shirgudoomiyayaashii shirkii arte kasoo ahaaj maxay kasoo shirgudoomiyayaashii ka qayb gashay waxay ugu horreysay oo lagu guulaystay in lagu dhiso shirkaas waxaa lagu guulaystay in lagu dhiso dowladdii ugu horreysay oo ku meelgaarka ahayd oo Soomaaliya maxay ahayd ay yeelato shirkaasi wuxuu ahaa haddaanan qaldanayn shirkii 13 waxaa ka horreysa 12 shir oo kale oo faydgaroobay oo fashilmay oo waxba ka soo bixinin kii cabdi wuxuu ka ahaa kii 13 oo dowladdii ku meelgaarka ahayd maxay ahayd noogu soo dhisantay waxay kale Caasho sugtay in haweenka ka helaan 25 kursi baarlamaankii dowladda arte taasoo ay kuraastoodii si siman u qaybsadeen gabdhaha Soomaaliyeed iyagoo aan rag soo magacaabin it was really good aad iyo aad loo taaban karo dagaalkii Caasho ugu jirtay nabadda iyo dhowrista xuquuqa insaanka waxay ku noqotay qof laga aqoonsado caalamka iyo qaaradda Afrika intaba waxay ka mid noqotay haweenkii hogaamiyayaasha caalamka
general elections that led to a peaceful and successful transition. Waxay ka noqotay member the high-level political committee on national peace dialogue. Waxay ahayd first Somali woman to sign a peace agreement on behalf of the civil society. Waxay ahayd qofkii haweenka ugu horreeyay oo civil society-ga ka ahayd heshiis u saxiixa. Waxay ahayd first female signatory of peace agreement at the Eldoret Peace Conference. Waxay ahayd caasho qofkii ka hadashay 2009 UN Security Council on behalf of global women peace and security. abaalmarinadii caasho la siiyey waxaan ka soo qaaday wax yar waxaa ka mid ahaa 500 most influential personalities in the Muslim world oo la siiyey 2013. waxay qaadatay African Achievers Award. waxay qaadatay Lifetime Achievement for Africa Peace. third waxay ahayd qofkii saddexaad waxaa ka horreeyay Kofi Annan iyo Kwame Nkrumah oo abstention lagu siiyey. caashana waxay ahayd qofkii saddexaad. waxaa la siiyey Global Citizen Award by Clinton Global Initiative 2009, first African to receive. Global Citizen Award by Clinton Global Initiative waxay ahayd first African to receive this. maxay ahayd ayada iyo waxa ugu horeeya oo qaata Paul Kagame oo ah madaxweynaha Rwanda. waxay qaadatoo kale caasha Blue Ribbon Peace Award by Women Leadership Board at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University ayaa siiyey. Women of Substance by the African Women Development Fund received along with the President of Liberia. iyada iyo waxaa la siiyey naagtii ka ahayd madaxweynaha Liberia. waxaa loo magacaabay caasho waxay ka mid ahayd haweenkii loo magacaabay Nobel Peace Prize 2005. Masha Allah, Abay Asha, you are a real inspiration. Annagoo dhan waxaa noo tahay haweenka Soomaaliyeed oo dhan inspiration oo tahay. waxaad noo abuurtay halkan aan laga daalin oo aan weligeen daba joogi doono.
إلهي مجد عيسى ماشي اللي يسويه ماذا وضد مسلمين يسويه ماذا وحاول وإن إلهي لا حسوسته إن الإلهي حسوسنا عنه مسلمين بانهاي مركا نو سو لابتو ما أنت ماشان وحي أن أرن لهذا Soomaalida waxay ku maahmaahdaa haddii lagu sheegana waa la ishaleelaa haddii lagu shaleelana waa la isheegaa maanta waxba iskama sheegi karo waxaan aad ugu faraxsanahay 20 sano oo carta wixii aan ka soo shaqaynay aniga kaligay ma aha aniga iyo dad dhintay oo qabri galay oo maanta aan rabo inaan iyagana u ducayno oo magacyadooda sheegayo iyo inta nool oo halkaan fadhida iyo inta maqan oo nala joogin inay tahay wax micno leh oo taariikhda nabadda nabad raadinta iyo heshiisiinta iyo dib u keenida dawladnimada Soomaaliyeed wixii dhisay waa magac waa wax Ilaahay uu qadaray haddaan ogaan lahayn ساني وحنا قناعي من داد بدن بيسكت دليل لها ما أنا نوجي لكن سيدا ما أنت ماشي أي شوكتو أبا وفرح سنة هاي وحنا ربعين عن كوب الله وإنت عن ورك كلام الكلام إلى رد عينه أو عن حسوسنا ضدكي سيدا وين قيمة وسوقاته قف كليه وحما قبته قبضة قبتي هوين صومالية ضل معنا لها قبتي ولي وحنا قدرها هي أو هوين كوي كعرران رجنا وانا رقبتي رج صوماليات راجعان الديار وانا رقبتي إلهي جنة الفردوس هجاية هنا قدام بدافو كوي نجهر مري كل واحد نجهر مرينا هي دكتوريسا نور تحاجي حسن الله يرضى أحد أو واحد أنقرني أو كقرني هوانك دستورك قفتي هو جامعنا هي أحد قد الشرع أو أنا صارني إن النوجلان إن لو قرن الرما هي هوانك دستورك لو قرن نور تهي هو جامعه dadkii soo qaatay haweenka Soomaaliyeed macnaha maanta ay leeyihiin kaalin ka soo qaatay waxa ah istarliin ayush ilaahay jannat firdawsaha geeyo ayadana oo aan ka bahadli karin waxa ay soo qabatay Soomaaliya nabadda Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed midna aan ka sheegi karin waxa kale oo ayadana ilaahay jannat firdawsaha geeyo ku jirtay Sakiya Cabdisalaam Caalin intii taqaanaa garanaysa mu'minad ahayd usoo dagaalantay aan iskula jirno ahayd dadkii aasaasiyaasha beesha lixaad waxa kale oo ayadana ilaahay jannat firdawsaha geeyo kaalin weyn soo qaadatay Sahra Maxamed Nuur oo kulligii wada taqaanaan waxa ay u soo sameysay haweenka Soomaaliyeed waxa kale oo ayadana qofkii ugu dambeeyay waxa ilaa cartan aan iskala wada nimid قمر آدم أو لو دلي أيضا وزيرك عافيماتك قرحي لو دلي قمر آدم أو كسو قيب كشي أرضي مسينا هي أرضي قلب جبسي أو مسينا هي أو يدودي أنت عجب إلهي وحن وقبرينا إلهي جنة فردوسة إنه جيو وحن كروكو درهيا وحن كوضع إنت يدي مدينة جنرال أو أدوكتني وحي أي صور مركي نلو صور ويراري أو عرض يدا لقبصدي مدينة جنرال وحي أهي إذا عدها عالم كايبور سنة هي قفك أنقادنا هي والبحنتيسة أيضا صور وعجري أيضا إيش يلي تفتح حالات ومركز وحي كوسو غلطة هاي وحن لها طي BBC وحي ورسة VOA قفك أنقادنا هي الوحو أها مدينة جنرال أنت عسكي أنت كلامنا حسوسنا أو نجهر مرتين إلى هاي جنة فردوسها جاي أنت يلا حرتي أو نور أو هذا ما أنت أنا سلهين قف أذهب لك هذا ومقيه هنا إلى وحن كبرينا قوة يجوا طريق السم كنتاجن صراط المستقيم كنتاجن Soomaaliya أنا معنا أوله دولة نما معنا أوله أنا جانا إنه اسمه كأي بدباليو قفر ما يبتو بنته دم بدافع جنة الفردوس إلهي الكرسي
wixii aan oran lahaay oo dhan waa la yiri wax yar inaan ku soo koobaan rabaa haweenka Soomaaliyeed dawladnimada 20 jirsatay oo maantay aan ku naaloonayno waan ku raaxaysanaynaa waana ku faanaa anigu waaba ku faanaa hadda shirarka markaan ka qayb galo anoo baryootama oo ka hadlayna Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin in dawlad ay yeelato madaxweyne loo doorto maanta ilaahay waxaan uga mahadnaqayaa 20 sano kadib oo maalinba meel la soo maray inaan ku faanahayo dawladda aan maanta haysano ay tahay dawlad micno leh markaan hoosba u gelin oo wax badan aan ka sheegin oo aan aadin meesha igu micnaha badan oo aan iloobay waxa weeye gurigeedii madaxtooyo sida uu u egyahay sida guriga madaxweynaha ee deegaanka uu u egyahay meelihii la tagi jiray iyo meelihii la geli jiray kulligeen waa isla ognahay marka wax walba la qabto haween baa leh oo wax ku leh taasna waxaan rabaa inaan cod dheer aan ugu mahadnaqo marwada madaxweynaha yaga maantay marwo Zainab waxay noo samaysay oo run iyo xaqiiqo ah state house aan keenan karno dad meel aan ku faani karno meel aan ku faraxsanahay noo samaysay ayadana madaxeeda la hagaajiyo waxaan rabaa inaan iyar ka taataabto maxaan soo marnay maxaan soo sameynay anaga horta wixii ugu weynaa oo ugu ordaynay ma ahayn baarlamaan inaan ugu fariisano ma ahayn wasiir inaan noqono waxaan u ordaynay waxay ahayd muddo aad ogtiin intay ahayd baan ciqaabnay waraan gacanta ugu jirnay aan sina u rabin in Soomaaliya dawlad noqoto horta guusha ugu weyn oo helnay waxa weeye annagoon xabad ridin oo afka ka hadalnay baan awoodii dawladnimada Soomaaliya warloor gacantood kala baxnay annagoon xabad ridin shirka Jabuuti waxyaalaha uu uga bedelan yahay 12 shir oo hore u fashilantay asagu wuxuu ahaa dad badan waa ka hadleen kii 13aad horta muxuu u noqday shir micno yeesha muxuu u guuleystay horta su'aashaas inaan isweydiino wuxuu u guuleystay labo awoodii Ilaahay iyo qadaradii Ilaahay markii laga tago labo u guuleystay shaqadii aan qabanay koow waxay ahayd dadkii meesha tagay baa dadkii bulshada rayidka ahaa rag iyo dumarka bulshada rayidka ahaa oo waxaan ka gudubnay warlooradii oo marna islahayn korkiina dawlad ugu dhisan karaan mid walba meeshiisu hubkiisa ku haysta iyo ciidanka wixiisa ku haysta uu asagu isku ahaa ninka carada xukuma arrinta labaad oo ay ku noqotay shirkaas shir guuleysta wuxuu ahaa kii ugu horeeyay oo haween ka qayb galaan oo macnaheedu yahay annagu xilma aan rabin xukunna ma aan rabin xal baan rabnay xal siyaasadeed baan rabnay waxaan isku keennay intii bulshada rayidka iyo dadkii hadalkayga kaliya waxaan xasuustaa maalin baarlamaankii markaan intaanan baarlamaankii la noqon wax walba caqabad baa nalagu keenayay maalin haddaad xasuusataan qof baa hadda carabka ku dhiftay madaxweynuhu uu aad u gooyay waana la hakiyey laysma daynay waad ogtihiin waxyaalihii ka jiray arrimaha siyaasadda meel walbaa nalo kaga mudahayay qori nalo kaga mudahayay dabna la kaga taabanayay ma raba inaan dib u laabto maalintaas waa hadalkan ku hadlay waxaan shaaran soo qaatay waxaan yidhi wiilkayga oo markaas 5-6 meelahaas jira baa wuxuu yidhi hooyo ardada iskoolka ula dhiganaya wuxuu dhiganayay markaasuu bilaabay hooyo waxay meel walba madaxweynaha jira halkaan madaxweynahoodu waa mooy Soomaaliya yaa madaxweynaha maxaan sheegtaa haddii la weydiiyo maxaan sheegaa haddii la weydiiyo waa intaabatay dadkii markaan ku iri warkii wallaahi kulli waa wada ooyay
maalintii qadow ma aanan bixin markii baa la ansixiyay wixii la isku wada raacay way ooyeen nimankii waa ooyeen marka haddaynan haweenka ahayn kaabashadaasu ma timaadeen annagii haweenka aha waxaan micno ugu yeelnay inaan wixii qabiil noqon qabiil annagu kama aana hadlay waayo qabiil muxuu noo taray waxba nooma tarin waxa aan ka cararayno ka ordayno waa roorada aan gacantooda kala baxayno awooddu kulligood waxay ahaayeen xigtay noo ahaayeen kulligood alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ilaahay uga xamdinaqahayaa ra'yigii ka yimid madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo tallaabadii ugu horreysay uu qaaday markii isaga madaxweyne uu noqday markuu tagay UN-ka khudbadii ugu horreysay waxay ahayd shirkaas ilaahay waa ku gargaaray annagana waana gargaaray oo dadka meesha tagaa waxay ahaayeen dad xal raba oo bulshadii rayidka ka socda madaxweyne cabdiqaasim salaam xasan doorashadii lagu doortay kulligiin waad wada xasuusataan xaashi saas loo laalaabay ahayd laba isdilaysay iyo laba isku dheganayd male markii la doortayna waxaan isugu nimid kulligayo madaxweynihii haddaad xasuusataan tallaabadii ugu horreysay oo madaxweyne cabdiqaasim qaado waxay ahayd inuu xamar yimaado ayadoo nimankii xoogga lahaa oo qoryaha haysta oo hubka haystay ay joogaan idinka shacbiga Soomaaliyeed oo haweenku hogaaminayaa waxay tuseen warooradii inay dowlad rabaan madaxweyne rabaan ayaga rabin madaxweynaha si ilaahay xadkeeda ogyahay maba ka hadli karna sidii loo soo dhaweeyay shacbigii baa hadlay qorigii ma hadlin shacbigaa hadlay oo sheegay inay u baahnaayeen dowlad inay u baahnaayeen madaxweyne laga bilaabo halkaas ilaa maanta oo 20 sano la gaaro maalinba madaxweyne la dooranayay horaan ku soconayay meesha labaad oo madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ilaahay khayr ha siiyee inay tahay inaan ku xusno laguna ogaado isxasuustaa maxaa la yidhi qofkaan ismuxaynin oo waxa qofka haddaan loo sheegin waxa uu yahay qofku waana noolaanaya waana dhimanayaa laakiin marka la dareensiiyo micnaha uu leeyahay qofku waa ku farxayaa cabdiqaasim salaad wuxuu ahaa madaxweyne la soo doorto kii ugu horreeyay oo markii cod kale inta la qaaday codadkii madaxweyne kale lagu doortay cabdullaahi yuusuf ninkii ogolaaday xilka inuu wareejiyo ogaada lama ogolaadeen waagaas waxaana ilaahay ugu maqlahayaa oonan been ugu sheegay dadkii shirgudoonkaan ahaa intii joogtay oo maragga ka ayd baa maragiiga ah in dad badani rabeen inuu diido uusan xilka wareejin cabdiqaasim waa uga hambalyaynahayaa khayrna allaha ku siiyo ilaahay aakhiraha uga qayseeyay waa u diiday waana wareejiyey xilkii madaxweynuhu ku wareejiyey maantay wax badan baan soo qabsanay nin kastoo madaxweyne kuwii ka dambeeyay ayagana khayr allaha siiyo sheekh shariif waqti xun oo meel xuna ood ogtihiin dhibku ahaa uu ka soo baxay madaxweyne ku noqday waa qabtay wax badan oo micnaluhu qabtay waqtigiisii xilka markuu codkii inta la codeeyey laga helay waa dhiibay habeenkaasna guddigii baan ku jiray doorashada waa fadhiyey ilaahay baa iga maraga dad baan rabin inuu dhiibo sheekh shariif waa dhiibay sheekh shariif waa wareejiyey xilkii waa dhiibay xasan sheekhna wuxuu ahaa civil society ka yimid madaxweyne xasan sheekh carta waa nala joogay waxay ahayd wixii aan dhisnay waxbaan dhisnay hoos ka soo bilownaa kor u socday xalkii awal kor laga raadinayo qoriga lagu waxaynayaan bedelnay mid nabad lagu raadinayo iyo wada hadal oo hoosaan keenay madaxweyne xasan sheekh civil society-gu ahaa waa la doortay asaguna markii la doortay madaxweynaha iyaga hadda madaxweyne maxamed farmaajo xilkii si nabad loo dhiibay waa dhiibay meesha aan rabaa inaan ku istaaga waxay tahay 20 sano intaasoo madaxweyne oo la soo martay maalinba wax aynu
soo darsamahayeen Soomaaliya ku soo darsamahayeen magaalo madaxda ku soo darsamahayeen xaggee rabnaa inaan u dhaqaaqno 20 sano kadib xaggee maanta maxaan rabnaa ma waxaan dib ugu laabanaynaa warloorismkii warlooradii iyo haddaan hebel ahayn hadduusan hebel ahayn haddaan aniga ahayn madaxweyne ma noqon karo kursiga ma fariisan karo mase waxaan horay u sii wadaynaa guulihii aan gaarnay oo carta ku soo gaarnay oo Soomaali dib ugu soo laabatay oo UN-ka uga mid noqonnay oo ambaasadoradeedii meel walba joogaan ayagoo weliba gabdho iyo rag iyo haweenba ah ay meel walba joogaan oo meesha aan lagu raaxaysanayo imaatinka dakadeeda in la yimaado dad ajnabi ah aad u jecel oo ku raaxaysta cuntada Soomaaliya oo organic ah dad ajnabi ah aad u jecel caalamka qaali bay ka tahay cuntada organic ah marka waxaan rabnaa annagu siyaasadba maaha waxaan rabaa inaan haween ahaan hooyooyin ahaan wixii aan soo aragnay iyo wixii aan soo marnay 20 sano kadib oo saas tartiib u soo gudubnay ma inaan horay u soconnaan rabnaa mise inaan gadaal u laabanno maxaan rabnaa horay inaan u soconnaan rabnaa dawlad micno lahaan rabnaa madaxweyne siday Fawziya jiray waxaan ku raacsanahay gabdho badan ay ka hadleen annagu waxaan rabnay qof iyo cod wixii aan rabno qof iyo cod bay ahayd waa la gaari waayay waxaa dib loogu soo laabtay waxaa la yiri bal 20 sano kadib haddaad dhagaysataan waraysi BBC-du madaxweyne Cabdiqaasim iyo aniga iyo 2 qof oo ahayd dadkii carta ayna warsatay afarteedba waxaan ku gunaanadnay doorasho qof iyo cod ahaan rabnaa afarteedba qof ka bedelay ma lahayn nasiib daro taayadii ma noqon nasiib daro hase yeeshee midda ay noqotay ilaahay bay ku xiran tahay awoodiisa annaga actionkeega iyo saan u falqaadnay nagu xiran tahay annagay nagu xiran tahay warmayna nagu xirnay annagay nagu xiran tahay haddii dibna loo celiyo wallaahi aanan soo laabanayn wallaahi waxaan ilaahay ku magaciisa wallaahi billaahi tallaahi inaanan ninna ka ogolaanayn dagaalkaan ogaa wallaahi aanan qof ka ogolaanayn dib in loo celiyo wallaahi aanan dib ka ogolaanayn ilaahay baan gaarsiiyay waa gaarnay cod baan leenahay xabad ma ridno mana ridayno cod baan leenahay hadal baan leenahay caalamkowna maqla na dhagaysta waxaan rabnaa doorasho sidii ay ku heshiiyeen u dhacda oo nabad ah baan rabnaa waxaan international community-ga ka codsanayaa magaciina ma ku hadli karaa waxaan ka codsanayaa inay waxa aan ku hadlayno haweenkii baan nahay hooyooyinkii waxaa la dilahayaa oo isdilahayaa kuwii ay dhaleen ay yihiin baan nahay ma rabno doorashadu sidii lagu soo doortay oo u dhacday oo dibna loo ku sidii baan rabnaa inay noo noqoto sidii baan rabnaa ayagana waxaan ka rabnaa international community-ga inay aad xoogga u saaraan inaan nin walba wuxuu keeno aan la dhihin hebel masaas horay in loo socdo arrinta labaad oo international community-ga ka rabnaa waxay tahay haweenka kootadii aan lahayn oo 20 sano soo jirsatay waxaan rabnaa maalinta aan soo xulanaynay gabdhaha annagaa soo xulanay qabiil sooma xulin waxay fadhiya dadkii gabdhihii la joogaaba fadhiya aaway Sahra
sahra fadhida oo kamid ah baarlamaankii maalintaas aan isla soo galnay iyadoo gabar yara waxaan ku qaybsanay inta aan nahay waxaan diidnay in la yiraahdo qabiilaadka afartaana hala siiyo shan qabiil kalena hala siiyo 3 waa diidnay 5 iyo 5 baan ka soo qaaday 5 iyo 2 aan shan u qaybsanay maanta waxaan u baahannahay awal waxaan rabnay tiro 25 haween Soomaaliyeed marna baarlamaan soo ma gelin maanta waxaan rabnaa tayo iyo tiro labadaba waa rabnaa tayo iyo tiro rabnaa gabdho Soomaaliyeed oo tayo leh iyo gabdho Soomaaliyeed oo tiro kootadeedu 30 haddaan wax nala kugu daray oo aan qofka anfuran alla noo keenin hadduu wax noogu darayana waa uga hambaliyayna haddii kalena kumi kama ogol inuu naga dhimo 30 keegii qofna ugama ogolin waxaan rabaa marka hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo hadaayta waxaan maqlahay oo aad runtii qalbigayga iga taabtay heesihii arta markaan joognay la qaadi jiray calool mibiran ka soo celisay Ismaaciil Cumar Geelle aan noqo waa heesihii arta waxaan rabaa anoo codkiina ku hadlay inaan cod dheer ku iraahdo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle adiga iyo marwadaadaba waa idin jecelnahay waxaad gasheen taariikhdayadaad gasheen haddaad dhimataanna jannada firdaws alla idinleeyo haddaad nooshihiinna ilaahay rabbiga casaa wajalluhna kor ay ka dhigo taariikhdayadaad gasheen annagoo ka hadlayna cabta iyo sidii dowladnimo Soomaaliyeed dib ugu soo noqotay qofkii aan xusin Jabuuti iyo Ismaaciil Cumar Geelle runta ma sheegin wax been u sheegay marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxay sheegaan haweenku waxay sheegaan oo markaan yaryarayn lagu maamaahi jiray ma aan fahmi jirin laakiin maanta waa gartaa baadiyaha waxaan isugu salaami jiray nabad miyaa baa ugu horeysa waxaan ku daray waxay tahay micnaha ugu weyn nabad iyo nolol iyo nabad iyo caano macnaheedu waxa weeye haddaan nabadi jirin neef la lisi karaa male waxaan soo baranay muntaayadii ku soo baranay oo waxaa idin sheegayaan run tahay nabadii markaysan jirin oo la qaxahayay hooyooyinkii carruurtii waa nuujin waayeen caanihii waa qallaleen ma rabno caano qallal ma rabno nabad iyo caanaha rabnaa nabad iyo caano waa mahadsantihiin ما شاء الله قوليسو